بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ku soo booqannay inay shir jiraad ku qabtaan boqor ciir madow iyo Khadar Xuseen aqoonyahana marka waxaan doonayaa bashirkoodan jiraad wuxuu ku saabsan yahay inay soo gudbiyaan. Assalaamu calaykum salaamina dhamaantiba. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. aan ku bilaabo boqor Cawil shirkina jiraayada suu ka yeedheen maxaa uu doonaysaa inay kaga hadashaan. marka hore waxaan salaamayaa ummadda islaamka, waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliland galiya dibad meel kasta ku sugay waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. shirkeygan jiraayad wuxuu ka kooban yahay wax dhowr waxyaabood. 25kii dagaalkii ka dhacay Gooja Cadde ee ciidanka qaran ku jabay oo laga guuleystay oran maayo maamulada ka socotay oo halka ku jabay buu ka socdaa iyo geedi socodka xukuumadda maanta joogta ay dalka u hogaaminaysaa wax badan doonaya ka iftiimiyo. haddaan ku horeeyo geedi socodka ay qarankan halku ku socdo muuse biixi cabdi madaxweynaha qaranka Soomaaliland waxa loo dhiibay dal iyo dad midaysan tagay maxamed axmed maxamuud siilaayo qaran dhisan oo dhammaystiran oo bari ilaa galbeed gamcays haysta oo isjecel oo kala dambeyn iyo xushmad leh ayuu ku wareejiyay halku maanta joogana ku sii tiigaalimaya cid kasta oo reer Soomaaliland way aragtaa ama ummadda Soomaaliyeed waxa dhacay siyaasadda Muuse Biixi waxaanay beesha garxajis boqor ciir madow beesha garxajis 30 sanadood waxa lagu yeedeynayay waxa ay taagan yihiin mowqifka ah Soomaali weyn bay digeynayaan taasaa kursiga lagu hor joogay taasay walaaladeen lagu oranayeen taasaa socotay oo ay soo gelinayeen beer saadnas tii inaan anagu marnaba u jeedina kii horena ka saaray dhibaatada ee xoreeyina inuu annaga ahaa ma aanan una socon marnana aanan ku fakirin aqoonyahan iyo wax garad iyo wax sheegtoona aanan ku fakirin waxa idin cadayna intaas oo aalahaydeen marnaba kamanaan dilin waxa maanta idin cadaynaya inuu Muuse Biixi Cabdi wadada qoondada loo hayo uu doonayo inuu Soomaali weyn inuu ku daro waxa idin cadayna shirki Djibouti waa ogeeyeen Allah habla isku weydiisanaya shir hoos ka xiriirsan buu ahay shir hoos ka xiriirsan ayuu ahaa in Cumar Geelaaw yeeray wuxuu jaanis-ka saad haysata kaalay 5 sanaad haysatay hadhowna cid kale la dooranaya kulliba 3 sanadood bay dawlad noqon weyday dawladda ku noqon mayso gacantaada adigu qaran Soomaaliyeed ku dhis maamar la soo degay wuu tagay inaga waxaan soo sawir dumar shir hoos ka xiriirsan buu ahaa isagiyo ninka lagu yiraahdo Xasan Sheekh way wada hadleen waxa la yiri adiga noo daa baleenka Soomaali wuxuu kama dhigi karo Soomaaliland shacabka uu kacay baleenkii uu aan shacabku kaana ku sameynay adigu waayihuuna dheh shaqada marka dhamaysatana darajada doonaysay meel waxa doonaysay adiga leh waxaad ku soo daran doontaa haliyay Soomaali weyn tiibu qaato maamulada qaranka ku jabay imanka tiibay ka dambeysay waa sharciyadii loo soo dejiyay ee uu soo dejiyay Xasan Sheekh ee uu soo dejiyay in Cumar Geel sharciyadii uma imanka la socotay waxa idin cadayna ilaa maalintii dagaalku dhacay qaranka Soomaaliland iyo madaxweynuhu mar qura uma dirin dhowr jeer baa la su'aalo oo balaad bulshada ay ka wada arkayna wada daawanayso la yiri maxaa dhacay cid ka jawaabtay wali lama hayo hay'adda madax bannaan oo loo diro dabagal ku sameeyo daraasadeeya wixii dhacay iyo waxa ciidanka halka geeyay looma dirin mana jirto wax socdana maynaan maqal mana ogin waxa halka idinka cadayna oo aydan marxaati madoona oo nin iska hadlaya aan ahayn inuu qaranka u socdo Soomaali weyn waxa awal jirtay oo markii hore ay ugu qasabtay LSRM waxay Soomaali weyn waxay ugu qasabtay shacabka reer Soomaaliland yar iyo way waxa ka go'an qadiyada Soomaaliland waxa shacabku u sheegaya madaxweyne iska ilaa halka idin laga waragta waxa maanta ka midowdaan in xornimadiinii ilaashataan in askariga iyo ka yar iyo ka laba jirka iyo ka garaadsaday imanka 3 jirka halad baladkaaba qaran ku soo korisaan in qurba joog iyo qolqol joog ma naf iyo maalba la huro inay shacabku jiida hore iska xaadiriyaan inay qaranku aanay niyad jabin inamada geesiyada xaq hore taagan intii dhinta Allah u naxariisto inta nool la caafimaad taamaasiyo inta la hayo Allah ka soo daayo waa inay dalkooda Soomaali weyn baa lagu wadaa ay gacan bir ku qabtaan waa inaanay qaran waxba ka sugin waa inaanay niyad jabin waa inay xorriyadii awalba shacabka dagaalamay soo hooyeen ay soo hooyaan xuduudaha sugan taasal ciidanka qaranka iyo ummadda reer Soomaaliland cidii danaynaysa ee shacaba aan kula talinaya yaani dugsan qaran halka uga horeeyo oo Soomaali weyn buu doonaya inuu sii jabiyo mooyo wax dhaqaajinaya ma jiro aqoonyahanku ha kaco wax garadku ha kaco war hal kaco oo ha loo sameeyo ciidankan maamul xuduudaha lagu soo sugo waa ka bax aad iyo aad baad mahadsan tahay anagoo idaacad ahaan aan cadayn karin qodobada waaweyn ee uu Soomaaliya in lagu socdo oo ku tilmaamay boqorku waxaan u gudbinaa Khadar Xuseen aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان والسلام يا أمة إسلامك ميل جوجانبا كارهان وحن أبو سلام يا أمة الصوماليات كارهان سوماليلان. موضوعا أرتا أن نسقون نمي كلبت أنا إنك أضيق بقر المدو أنه halkan ku kulanay ee sukaya keenay waxa weeye ku saabsan wuxuu daaran yahay 25kii bishiina dhaaftay arrinkii ka dhacay Laascaanood oo si kastaba wax u dhaceena dee qalbiyadeena ku noqday arrin aad u weyn oo laba filaan ahaa. marka hore intii halkaa inaga dhimatay waxaan leeyahay samir iyo iibaan Allah inaga siiyo dhammaantiin haddaynu nahay jamhuuriyadda barakaysan ee reer Somaliland. maxaabiista cadowga gacanta ku hayo ee maanta ku sugan Laascaanood ama Garowe iyagana waxaan leeyahay weligeed baa dagaal dhici jiray, maxaabiis la kala qabsan jiray. dee qarankiina waa dhibaato idinku difaacayo dhibaatadii soo gaadhay adkaysinkeeda laydinka rabaa. haddii dee dhibaato loo geysto oo waxaan maqlayay qaar baa maxaabiistii la laayay, qaar baa la gowracay, qaar baa lala baxay. waxaan leeyahay dalkiina ayaa u dhibaateen. annagana dee halkaa wixii waajiba ee nagala gudboon waanu maray insha allah bismillaahi kariim. intaasi waa intaa. in yar baanu ku kala duwannahay walaalkay boqor cawil cirmadow. halkaa wixii ka dhacay waxayna wada saameeyey weeye haddii aynu nahay dhammaan shacabka Somaliland dal iyo dibadba. maanta anigu odhan maayo madaxweynuhu Jabuuti wuxuu u tegey in Soomaaliya lagu biiro. bini aadamku waa kala aragti, waana kala aragti duwan yahay, kala fikir. uma arka anigu taa madaxweynuhu intii taalkiisa inuu qabtay baan anigu arkaa. haddii Soomaali weyn lagu noqonayana si midaysan oo shacabku iyo dawladba laga midaysan yahay baa dee dadka loo soo bandhigayo loogu noqon. fikirkayga aniga weeye gaarkaa. maanta waxayna la gudboon dal iyo dibadba. hadda hadalkayga eega dal iyo dibad maanta waxayna la gudboon haddaynu nahay qaranka Somaliland ama ummadda ka soo jeeda reer Somaliland ama dibadda ha joogeen ama dalka ha joogeen. waxayna la gudboon midnimo inaynu qarankeena meel uga soo wada jeesano oo aynaan eegin xusbi wadani, xusbi ucud, xusbi kulmiye aynaan eegin. qarankeena baa lagu soo duulay. aniga fikirka iyo muuqda ama aragtida iyo muuqata qarankeena aynu meel uga soo wada jeesano. waxaad moodaa 8 bilood u dambeeyay reerka la yiraahdo Daarood in ay ka midaysan yihiin dal iyo dibad. inagoo 32 sannadood qaran dhisnaa ahayn ayaa inan yariintu meel ka yimo 15 sannadood ka wareegaysanayay Somaliland dibadda kaga wareegayay ayuu Laascaanood soo dhex taagay iyadoo saraakiisheena taagan tahay oo wasiiradeena taagan yihiin oo madaxdeena oo dhan joogto. deetana wuxuu yiri gala dagaalka. shir baan tolka la shiraya buu yiri wixii ka soo baxayna wuxuu noqday gala dagaalka. ciidan 10,000 oo qof oo meel aynu ku ogeyn oo dhulbaanta iyo harti lahaa ma jirin. gala dagaalkii waxaa ka dambeysay 8 bilood markuu soconayay wixii halkaa ka dhacay inuu weyn. war maanta waxaan leeyahay reer Somaliland maanta waxaan leeyahay dal iyo dibad baynu u gudtano sidii aynu u habeenahay qarankeena waana ka baxay. waxay kelmad yar baan ku odhanayaa horta khadar aqoonyahan khadar aad baan u salaamaya
أنا قلبي وأنا قلبي عن وأنا إبن صاحبها وأنا إحبنا دلك كوك وهي أرجنا إيه ربنا نقول نقول يا حنقول نقول يا مدينتها قرن كيلو كحسب كستعد هاتي وسيس بيعلن داتي أما يعودها أما وطني هم كل مياه ما أنت حلقات دوني هنا تشي دورس كعادرس كقربات شو قلنا تشي دورس كعادري waxaa yara jirta in iminka saaxiibada qaarkood yahay maxaa lagu cadayn karaa inuu xamruun dee shakiba male shaki iyo ka hadalba male qof kastoo caqli saliima qaba wuu ogyahay in Jabuuti lagu heshii xamar uu nagu wada madaxweyne waxaan hadal lahayn waxaa ku cadaynayso just proof inaan kuu sheegi karaa saambal wax badan baan ogay dal iyo dibadda qaar bay igala soo hadlay Jabuuti xalayto habeen hore wax laga soo hadlay Hargeysa wararka soconay xamar waa laga soo sheegay waa hebel ku oran maayo waxaan si oga oo dhab ah in loo saar lahaa guddi madax bannaan in la soo bandhigi lahaa ilaa iminka dad howlahan ka shaqeeyey oo dabagal sameeyey oo daraasad ciidan sameeyey cid iminka hadal haysaana ma jirto cid ku fakeraysaana ma jirto madaxweynuhu jiidda hore inuu tagaabe inuu dhaawaca u tagaabe inuu kuwii laga laayay dadka guryo ugu tagaabe inuu moraalka ciidanka soo celiyaabe waay dee waanu doonayba Somaliland in jirto wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu